markii dambe uu sheegay walaalan shimaali baan maya kawdhe kulli xagga shaqada laftigeeda qaladaad ma jira laakiin halka ka sheegi maaye niyo waan isku eegna laakiin waa ka yara dheer anigu waana ka yara cas marka wallahi barnaamijyada badan uu sameeyay anigu la tiriyay qaar badan oo sameeyay isagana waa loo tiriyay marka hadee كل دول لما نروح ونهاي تالنتي ودس حافظة كود الشراء ولا أدول هاي كدقو لكن كاشياء وخير دير صاحبي يا السود وهذا ملك استاكت شوكتان دافها عالم قلبتها وحبر بركي قصوغان صاحب بدي وريا أحمد شمالي يوريا فهد شكيب نما كان سيدي مقا عايسكي ايجين به والشمالي يا شكيبه تدبضان وحي رحدان ويسو ايجين bal maanta nimankan waxa dadweynaha kala qabsada markii meelaha lagu weynayaan bal kaftankana dhex mari doona soo dhawaada saaxiibeel fahad soo dhaw saaxiib maxamed suldaan oo aad u mahadsan tahay adiga asxaabtaaduba horta ninkan waa lagu khaldaa aniga isaga lagu khaldaa laakiin isaga aniga lagu ma khaldo kawdhe ma qaftamayo ninkan uu iska hawlo badan yahay ده ونير صحفي ونير كوين وين مقرسانين يجوين أنا ما خيرها عشان يجسوري كودي برامجي ده بدنا وبسمي بالله يقول هوانيو إما واحد شتى ورئيس وكقاعد قبل وش فرحيه وبسيه أي ورئيس كقاعد كذي واحد ترتي سؤاله بدو حساسي ويدي ده بابا يقولون شري ونيو سانت محد نيو سؤاله ودي سنو عاص نيو محد سانت سكون نيو سلانتي فتحيه وبسي مثلا قرتين ومتان كيجي هاي مرها نيو ونسكو إغنى لكن وكير دير أنو وانا كير عصا فهد شمالي سدو صاحب waan dhaway horta maxamed suldaan saaxiib horta qodobka daada ambiil baan ka qabaa iyada taas sidaa ku qaadan maayo laakiin mid waan qaadanayaa horta ninkan dawi ka casiyo warun taa waan siiyey qodobkaas ekaanshiyaha iyo isku qaladkuna uu qodob jiro weeye marka wali faham lagu khalday in badan wax badan habeen iyo maalin waa lagu khaldaa ma garad suuqa marka barayso daha waa fahdo arrimihii tiktok xaqna tiktok ninkan caad buu ka yimid xaq tiktok marka barnaamijyadiisa tiktok oo dhan ana la tiriya markaas aan waranigi ma hala allah tiktok ma leeyahay baan labadiinu isku magacna waatiin waa shimaali iyo shakiib labadiinuna wax weeyaan laba nin oo casbaatin haddana ilka cas haddana isdharar leeg bal ka waraarinta dadka dhararkii laftigeedu waan ka carariyay waan ka dheerahay taa dhawan dadka number qaatay fari doonay laakiin waxba ilaahay baan la dharar ku faan maaye waa qodobka isu ekaashiyo uu jira waxyaabo fara badan sida uu sheegay fahadna runtii barnaamijyada xagga barnaamijyada kuwa soo saarana qaarkood ana la tiriya kuwa aan soo saarana qaarkiisaga loo tiriya marka anagoo moodayna de arrinkaasi inuu dadka qaar yahay baan xitaa mararka qaar aan sal socono anagoo isagoo sii jeedo ama aan xaggan kasoo sii jeedo isaga aniga lagu khaldaa ama isaga lagu khaldaa marka laga yimaado shimaali iyo fahdow soo heekaantiina bal waxaad weydiinayaa waxyaalo ama dhacdooyin ama qisooyin bulshada dhexdeeda kala kulanteen fahad shakiib baan ku horeysiin doonaa niyow horta halka uu sheegay horta shakiib aniga abahay baa la dhaxdaa aniga fahad baa la dhaxdaa aniga shakiibku waa abahay dadku laakiin waxay moodaan shakiibka anigu ahay niyow weejina soo kaashaas habeenba waxa dhacday anigoo damar fadhiya iska shaahaya ay saddex nin yimaadeen saddex nin bay soo fadhiistay kadib way yeedheen sheegan walaal noo yar kaalayo may walaal ku baahanahay maxaad iga baahantii ma wax saddex nin yihiin moog saawir maxaad iga baahantiino sheegan walaal hawl baan kaaga baahan noo kaalayo ima markaa halkan soo fadhiista waxaan sidii wax kale u qaatay magaranaysa habeenna way ahayd marka halkii bay soo fadhiisteen waxaa niyow xusbigayga aad u dhalishaa waka markii waan gartay ishmaal aan waxaan ahay wariye horta arrimaha bulshada ka shaqeeya siyaasadda kaba shaqeeyo siyaasadda waxaan uga baahdo su'aalaha qofka toos ma abaaraa laakiin uma yihi dadka xusbi hebel iyo xusbi hebel u ololeeya ma raaca midtoona ma yihi saaxiibkeena maaha saan ka filaya dee maalinsan uu sheegi doonaa laakiin shakhsiyan anigu ma yihi marka nimankaas waxay xusbi bay igu tirinayeen kawdhe waan gartay iyo shimaali moodaya kadib masaan gartay nimankan inaanay doonaynay marka xusbi soo halqaadeen ilaa kay shimaali doonay masaan ku hortaan magacayga ma taqaanaa سيران هاي ما تشمل هيد سايتا قصة كود
meeshii maalin bay kii ka weynaa waan ahay yaa haye walle wakaas orto nimanka qosolku nimanka isku noqon aniga magacayga faatishki baa waka laakiin ninka wala isku hay khaldaamaan orto markii bay sidii ka tagay hadda shimaali aan noqon lahaa waxba dee aka ka dhicilaa adigu shimaalow mid buu ka tegay horta habeenka u baqsana oo ila sixray isagoo gargarinaya wili faad taa uu ka tegay sidaas la mid ah dhacdooyin fara badan baa jiro maxamed uu soo maray intii saaxiibkay ama taqaana la isku kay khaldiyay waxa ka mid ah maalin aanu burjo oo mar hoos taagan ayaa inan baa timi markaas tiri walaal meed wareysiga qaado TikTok ah barnaamijkaaga TikTok ah aad igu wareysato wareysiyadaadi marka markiiba waan gartay inay ninka u jeedo fahdiyay laakiin kamaan jirona cabaar baan sheekaysanay oo TikTok-geeda bay tustay oo cabaar baan sheekaysanay followers fiican bay haysatay oo inaan kaftan furan bay heedo si aad baan salaamaya marka markii dambe aan sheegay walaal anu shimaali baan ha maye kawde kulli xaga sheekada laftigeeda qaladaad ma jira laakiin halkan ka sheegi maaye sidoo kale maalmaha ka mid ah nin aan filayo inay family ahaayeen ninka la fahad ayaa anoo dhalidoos laftigeeda inaad baan filayaa ayuu igu soo boodi anoo sii jeedo markaas war abti maxaa taa igu galaysaa maxaa markaa waan dareemay inuu moogta markuu igu qabtay xoortadii ayaan dareemay inuu fahad moodayo moogta markaasaan waxaan sira warar fahad dhagar kula yahay waan isbaxnaaniyey markaasaan ku uri fahad meeyi waa shimaali weeye markaas ii gartay si fiican buu ii gartaa kawde isku khaladkaasi waa jira isku khaladkaasi waa jira markaa fahad baan soo laabanaya sheekooyin kale oo xitaa sheegi karin baa jira laakiin si gaar aan kula wadaagina maxamed adiga anna markaas saaxiibaday la wadaagaya igu xidhan adiga laftigaagu kuwa kale ma jiraan daniyow horta ninkan horta waa nin daahani gaweyn wani hore u sheegay ninkan saxaafadan uu iga soo horreeyey barnaamijyo badan oo taxanaan ninkan uu sameey jiray waliba ninkani dadku waxay aad ugu yaqaan ninkan qaabka sheeka dhiska ninkani way warbixin samaynta iyo ayuu ninkan aad u yaqaanaa run ahaantii dee warbixin badan uu sameeyey u codeeyey baana lay tiriyey oo qaarkood sensitive ay ahaayeenba ayaa lay tiriyey aniga moogtay oo halis baa kale moogtay warbixinta tahay fahad arrimo kale oo aad ma garanaysaa kala kulanto ama sheekooyin kale oo waxay way jiraano ninkii waa nin desaan hore u sheegay saxaafaddu ninka iga soo horreeyey waa nin daahan iga weyn dee barnaamijyo badan uu sameeyey run ahaantii warbixino qaar oo uu sameeyey sensitive baana lay tiriyeyba la yidhi warbixinahaas adeer samaysay wakaas maxaad uga jeeday ma garanaysaa marka wallahi barnaamijyo badan uu sameeyey aniga lay tiriyey qaar badan aan sameeyeyna isagana waa loo tiriyey marka dee kolley dee waa laba nin waxaan nahay talent iyo dee saxaafadda ku wada jira walaala ah hadduu ilaahay ka dhigo laakiin kaashiyaha waan ka yar dheer intaas hadii janno ka kala waan ka yar dheer waan ka yar tama jilicsanaa laakiin dadkan weli idinkoo wada socda wax ma kugu dhacay ha ana wada socdaa waxaan waayo dad badan baa markaana wada soconnaa idhaahdo alla oo nin waan isu ka khaldan qaar baan moodaya inaan walaalnahay waayo shakiibka iyo shimaaligaas ku eeg magac carbeed oo magaca carbeed way shimaali soo dhow waa dhoway saaxiib mar kale de kulli sheekada wax dhameeyay fahade dadka waxaan leenahay daas ku kay khaldina maanta wixii ka dambeeya laakiin inkastoo aan ka daalaynin marka de lagu dhago inaan shaki ma waa shimaali maxaad leedahay asxaabta ku xidhan bogga maxamed suldaan iyo fahad taageerayaashiisa waxaan leeyahay dee horta hasku ay khaldina waad aragtaan nin cajabi carab baan kala nahay ana nin cajabi aan haysna waa nin caraba ta kale ninkani barnaamijyada rabadaanta xilliga ugu badan horta lagu khaldaa maxamed suldaano rabadaantii waa soo dhow waa xilliga rabadaanta weliba hablaha adigu khalda ninkani taageerayaasha ugu badan uu leeyahay waa hablaha waan ogaadayba adiga laftigaaga suuqa hablaha ku badiyay suuqa maya suuqii habluhu ku badnaa eenba ayaa tan iyo maalintii ninkaa aanu waxa weeye kaashiyaal lagu khalday ayaan soo galayba ma garat marka waxaan leeyahay barnaamijyada rabadaanta waxa weeye weliba xilliga rabadaanta lagu khaldaa saaxiibkeen rabadaanta taxana badan buu sameeyey bandasha maayarka kii tiktokerada rabadaantana mid buu soo wadaa laakiin ha igu khaldinina hadu maxaad leedahay saaxiibka waxaan leeyahay dee bal guli gobonimo saaxiibka shimaali waay daawadayaal haddaynu intaasi kaftankaasi kaga nimaadno waa weriye axmed shimaali iyo weriye fahad shakib ninkan shimaali la yidhaahda wuxuu ka warramaa arrimaha siyaasadda iyo sheekooyinka ninkanna wuxuu ka warramaa arrimaha bulshada oo waa fahad shakib yaan la isku khaldin bal idinka laftigiinuna ina maalinuna isku khaladeen commentiga noogu soo reeba waa mahadsantii saaxiibayaal meel kasta ka joogtaan daafaha caalamka